marka hore horta waa idin hambalyaynaya qarankuna waa idin hambalyaynaya waxaa laydinku hambalyaynayaa marka hore shaqada qabataan ciidan ahaan saraakiishiina saraakiil xigeen dabley iyo janala waxaad tihiin markala ciidanka qaranka ama ciidanka booliiska ama ciidamada kale kala duwanba ma jiri karto dowladu ma jiri karto qaranna jiri maayo haddaanu ciidan lahayn ra'yiga aada suuqa loo wadwado ee iminka dadku ay ku riyoodaan askartu waa meel xun way lacag yar tahay waa askariga waxaa la yidhahdaa waa qof aan qaran garanayn qof qaranka caayo wey waynu ognahay badankiinu kole axmed baan hayaa 10 sano u dambeeyay farad ku fadhiyay qoladin kale waa irtiin oo garanaysa waa irgina soo tabartay haddaydan cilmigii filadka ku dabaqin oo aydan taliyaal soo noqon guuto qayb abaanduul hadhowto ciidanka soo hogaamiyo adkaanaysa dadkii hore ciidanka u soo tabartay waa da 20 sano in ku dhawo dhaxana intii islaamta deerkeeda lagu jiray 10 sano ka dambeeyay oo jawra gaabkaasina u banaayay ciidanka dhakhaatiirta uu ka banaayay cid walba laakiin horta ciidanku waa inuu buuxsamaa si qaranku doo isu taago ilaa hadii kala qaranku wuxuu noqonayaa hilib bisile daanu ciidan lahayn marka waxaan ku hambalay horta shaqadan aan qabataan ciidanimada dhammaan waxaan ku hambalay inaad daa walba ka soo baxdeen iskuulka ka bilowdeen secondary soo marteen cadet officer ladies sarkaal baa soo marteen waa ka soo gudubteen shaqadii baa gasheen waa ka soo gudubteen hada abaal gudbo hesheen in la diro abaanduulkiina waxa ka soo baxdeen sharafta ilaa bilada haba soo qaadeen ama noqoteen afartii ugu sareeyay badii wixii isugu mid meesha Afrika oo dhan marka afarinoodii qaranka meel ugu qoran oo taariikh dhigay to aqooneed ayaa noqoteenoo waa la idinku hambalyeynaya waxaa la idinka doonayaa aqoonta keentan iyo horumarka inaa ciidankana ku dhistaan oo ciidanka loo dhismo oo sidii hore naftu gurtaan xoogga waxaan saaran dhismaha ciidanka hadduu ciidanka loo dhismo qaranka u dhismaya haddii ciidan la waayo dhismaayo annaga madaxweyne ahaan iyo xukuumad ahaan iyo la taliyaha siyaasadda madaxweynaha oo ninka dee arrin dhariga dhammaantii waxaa nagu waajiba inaanu ka ilaalino ciidanka qalindaarka ciidamada haddii la qalindaaro socon mayso ciidanku ma qaadi karo musuqmaasuq ciidanku ma qaadi karo xeer jebin oo sharciga in nina laga dhaafo in lagu dabaqo ciidanku ma qaadi karo ciidanku discipliin iyo ismaqal buu ku dhisay annagu siyaasadda u soo gudbinayna ciidanka soo dhaafmayna wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyihiisa waxaanu korgaraynaa siyaasadda guud iminka waxaynu ku jiraa oo guurta maraya ciidankii xaqsiinta ciidanku markuu da' noqdo howlgabka yahay muxuu xuquuq leeyahay da'deeda buu ku noqonayaa howlgab hadduu dhaawacmo maxaa buu noqonaya taasi iminka waxay maraysaa gabagabo dowladduna way baaskaraysay waa ku dhaqmayna oo noqon mayso ninkii ciidanka ahaa inta lagu guuro uu naafoobo ama bukado ama gowa in lagaga taga suuqa ma noqonayso laba in dhulka danta guud ee dadka beeraha laga qaadayo inay noqdaan dhul loo dhiso ciidamada iyo shaqaalaha dowladda oonu milishiibeed dhul wal ninoo beer lahaa ama meel walo banaanba dowladaha hoose waa qorsheeyaan wasaaradda howlaha guud iyo waxaan faraynaa dhulka danta guud waxa kow ka noqonaya danta guud waa maxay waa wax qaran ku leeyahay dhakhtar garoon lagu ciyaaro police station iyo shaqaalaha ciidamada meel degaan waa ceeb nin qaranka u dhimanaya oon dhul balahayn oo caruurta guri ay gasho maalin bari leeyahay halkan cid baa leeyahay oo ku iska qeynaya oo lacag ka sameeyo dhulka iska fadhiya ama macallin kii adigu inaga waxaan soo baray oo laga yaabo inuu gaboobay oo laga yaabo inaanu meel degaba lahayn marka xanuun badan bay nagu haysaa ninka furanta jooga sarkaala dabla sarkaal xigeena ee ku soo report garanaya adiga taliya caruurtayda waa guriga laga saaray caruurtayda iskuulka laga eriyay guri ma laha xanuunkaas uu noqday waynu ka bogsanaa insha Allah ciidamada si qumam haba yarata taagteen laakiin waa in noloshooda hoose si qarannimo loo daryeelo taana waa galayna idinka aba mahadnaq iyo hambalyo ka bacdi waxaa ka sugayaa qaranis ciidanku inuu sidii uu ahaa ka sii xoogisto discipliinkiisa in laga ilaaliyo qaldaarka ciidanka baryahan dambe waxa batay odayaal salaadiin
siyaasiyiin wasiiro laga yaabo inay u hadlaan qof ciidanka ah hebel lama dalacsiin hebel baa wax yar buu sameeyey qif yaro maxkamad baa la geenayaa ciidanku court martial buu leeyahay maxkamad gaar uu leeyahay sharci gaar uu leeyahay uu kaga duwan yahay waxa kaloo dhan waana tuu qaran ku hayo taana waynu furaynaa waad soo dhaweynaynaa ciidamada kalena salaanaa gaarsiiya aad iyo aadna waad ku faarnaa waad ku dhaadanayna asalaamu calaykum waraxmatullah fadlan subscribe saar si aad u hesho muuqaalo dheeraada sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barta aanu ku leenahay facebookga fadlan si aad ugu xidhnaato like saar bogga Twitterka ayaa sidoo kale aad nagala socon kartaan si aad u heshaan sawirro iyo muuqaalo dheeraada muuqaalo qoraallo iyo sawirro dheeraada waxaad kala socon kartaan mareegaha www.somalilandnation.com ama www.madaxtooyada jsl.com